hooyo Xaawo Maxamed Xuseen oo ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ahna gudoomiyaha ururka daryeelka hooyada iyo caruurta ee degmada Warshiiq ayaa qalab caafimaad oo ka kooban sariiraha bukaanada lagu jiifiyo iyo qalab kale caafimaad gaarsiisay isbitaalka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xaawo Maxamed Xuseen oo ah gudoomiyaha ururka daryeelka hooyada iyo caruurta kuna wareejinaysay isbitaalka qalab caafimaad ayaa ka warbixisay baahida loo qabay qalabkan caafimaad kaasi oo wax weyn ka bedeli doono adeega caafimaad ee isbitaalka. waan hadda wareejinayaa qalabka isbitaalka caafimaadka oo ugu talagalay isbitaalka Warshiiq dhammaan deegaanada ka soo jeeda waxaan u istaagay anigoo ka soo jeedo daaliyada Talyaaniga waxaan u istaagay inaan dadkaygi iyo dalkaygi aan garab istaago. maamulaha isbitaalka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Dr. Sakariya Xasan Mayre ayaa ka mahadceliyay qalabka caafimaad ee ay ku wareejisay hooyo Xaawo. maama Xaawo nagu wareejisay gudoomiyaha Sheekh Qaasim Dr. Cabdullaahi Dr. Bashiir iyo suduwaha intaba iyo dadka deegaanka. gudoomiyaha degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Xuseen Axmed Shiidka ayaa ka hadlay muhiimadda uu qalabkan caafimaad u leeyahay bulshada ku nool degmada Warshiiq wuxuuna baaq u diray qurba joogta kale in ay ku daydaan qurba joogta Soomaaliyeed ee soo gaarsiisay qalabkan isla markaana ay ka qayb qaataan qalabaynta isbitaalka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. isbitaal maanta ma waa shay baar leh laga suubeyna waa kan kii ugu horeeyay inta ka horeysay qolo walba caafimaad meeshan ka shaqeynaysay qiyaas ay tumis tifooda malaria laga daaweeyay iyadoo uur la kaniini la siinay dhibaato badan laga kulmi jiray maalin waxaan la kulmay haddana doctorka la joogo in gabar muxuu ahaa caafimaad rabto daawooyinkaas oo loo qoray la yiri daawooyin lagu qoraa bal horta muxuu ahaa shay baarka tag soo baar أنا أقول لي توديت هذيك أظن لو بارنا وكسيمين ويرتطر والله فدي مالكاس والله الله ويقولاتي واتقول صوب باري ورلو بلودك صوبح مركز شيء بارلان تيسر دواتوه موسى عثمان أبطو تلفزيون كقرن كسوماليات مقدشو.